waxaan qabaa in waaridka yimid halkan dadka dagaalada sokeeye ay saameeyeen oo soo hayaamo coladaha dartood dalkan yimid waa dadaaleen dadaal badan ayay macnaha runtii muujiyeen ilmihii bay la soo qaxeen waxay yiraahdeen nolol u raadiya caruurtiinni halkan markay yimaadeen inta badan ma aysan helin dad soo dhaweeya oo runtii uga sheekeeya dhibka iyo caqabadaha ka hor imaan kara ama dalkan ay leeyihiin marka qaybahaas hore waxay u arkeen sidii ay Soomaaliya ku noolaayeen baad ugu noolaan kartaan mar haddii aad nolol hesheen gurina aad hesheen hoyna aad hesheen ilmihiina waxbarasho idin aadeen haddee waajibku wuxuu saaran yahay bay jiraan caruurta waxbarashada loo diray laakiin waxa ay macnaha meesha ka saareen in dalkan uusan dalkanaga ahayn dhaqankanaga uusan ahayn taa marka waxa dhacay in caruurihii halkan la yimid intii badan ay ku jaha wareereen dhaqanka guriga markay ku soo laabtaan ay macnaha kala kulmaan iyo dhaqanka markay guriga ka baxaan ay iskuulada iyo dibadda ay kala kulmaan marka waxa la yiraahdaa culture shock ama dhaqan wareer baa macnaha runtii yimid waxaan kaloo dhigi karaa marka loo eego wadamada kale ama dhaqanka mararka qaar xataa Soomaaliya hadda aan ku soo arkay waxa jira community-gan lafteeda Ingiriiska hadda aan ku noolnahay waxa la helayaa number badan oo aan dhigi karo 20% kor bay u dhaafayaan qoysas dhaqanka Soomaaliya lagaga noolyahay mararka qaar oo dhaqan ka wanaagsan yahay xataa midka ayagu ay macnaha ku soo aabeen ama caruurta ay xilliyadii anagu aan yaryareen koraynay waxa arkaysa qoysas aad iyo aad macnaha u dadaalay oo dhaqankii halka kan wixii wanaagsanaa ka qaatay ka iyagiina macnaha haysta arkaysa